laakiin anigu ma aqaan qasriyada ku yaala dalalkii ay nimankani ka yimaadeen, ayuu ninkii dhalinyarada ahaa ugu halceliyey aabihii. haddana aabihii ayaa hadalka qaatay oo ku yidhi, nimankani markay arkaan beeraheenna iyo dumarkeenna waxay tamaniyaan oo doorbidaan inay weligood halkan ku noolaadaan. wiilkii ayaa hadalka ka daba qaatay oo yidhi, waxaan rabaa inaan soo arko dumarka beeraha iyo dhoolkii ay nimankani ka yimaadeen, sababtoo ah in badan ina lama joogaan. laakiin nimankaasi waxay haystaan lacag aad u badan, balse inaga qofka adhi jiraha ah oo keliya ayaa arki kara dhool kala duwan, ayuu aabihii yidhi. wuxuuna wiilkii ugu jawaabay, markaas anna waxaan noqon doonaa adhi jire. aabihiina wax hadal ah uma celin. subaxdii xigtayn wuxuu wiilkiisii siiyey sanduuq yar oo ay ku jireen 3 shilin oo ah dahab ahna lacag Isbaanish ah oo qadiima. wuxuuna ku yidhi, qaado oo ku iibso xayn adhi ah, adduunkana ugu kala goosh oo ku safar, ilaa ay imanayso maalinta aad ka ogaanayso in qasrigeennu yahay kan ugu weyn, haweenkeennuna kuwa ugu quruxda badan. ducana wuu raaciyey. wuxuuna wiilkii dhalinyarada ahaa ka dhex akhriyay indhaha aabihii rabitaanka ah inuu dunida ku dhex mushaaxo, rabitaankaas oo ku dhex jiray in badan. inkastoo uu 10kii sano ee uu la noolaa isku dayay inuu ku cadaadiyo inuu hal meel wax kula cuno kulana cabo, hal meelna kala soo tooso. waxaa dilaacay waagii qorraxdiina way soo baxday. dabeed ninkii dhalinyarada adhi jiraha ahaana wuxuu soo xasuustay sheekadii dhex martay isaga iyo aabihii, wuxuuna dareemay xoogaa farxad ah, maadaama uu hore u bartay qasriyo badan iyo dumar badan. laakiin inkastoo aanay midna u dhigmin tii uu sugayay inuu la kulmo 2 cisho kadib. wuxuuna haystaa iminka jaakad iyo kitaabo mid kale ku bedelan karo iyo xayn adhi ah, balse shayga ugu muhiimsan waa inuu maalinba maalinka ka dambeeya ay rumoobayso riyadii noloshiisa ugu weynayd, taasoo ah safarka. iyadoo uu ku fekeray in marka uu ka daalo ku dhex gooshida baadiyaha Andalus inuu iibiyo adhigiisa si uu u noqdo badmareen, iyadoo marka uu ka daalo badmareennimadana uu noqon doono nin yaqaan magaalooyin badan iyo sidoo kale haween badan, iyo waqtiyo badan oo marka uu soo xasuusto uu ku dareemo rayn iyo farxad. wuxuuna isweydiiyey isagoo daawanaya qorraxdii oo markaa fallaadhaheeda la soo baxday, sidee bay suurtagal u tahay qofku inuu madariso diin iyo tago isagoo Ilaahay wuxuu ku garan lahaa inuu ka barto raadinaya. dhismahan qadiimka ah ee uu haydayna maanta ka hor muu iman, inkastoo uu dhowr jeer oo hore soo maray goobtan. adduunyadu waa weyn tahay, lamana soo koobi karo. hadduu idihiisa is yidhaahdo ha ku hoggaamiyaan, wuxuu gaadhi lahaa oo uu ogaan lahaa wax cusub oo uu ka heli lahaa dheef ama faa'iido. wuxuuna isagoo isla hadlaya yidhi, dhibaatadu waxay tahay iyada oo aan ogeyn ama aan garanayn inay maalin walba wadooyin cusub marto, iyo in waqtiyadu isbedelayaan, goobihii daaqsinkuna isbedeleen. sababtoo ah iyada shayga ay u baahan tahay ayaa ah biyo iyo daaq. haddana wuxuu isugu halceliyey, sidaasi waa xaalka noolayaasha oo dhan, sababtoo ah aniguba kama fikirin dumar kale taniga intii aan la kulmay gabadha uu dhalay ninka ganacsadaha ahi. cirka ayuu eegay, wuxuuna ku qiyaasay isagoo garashadiisii hore ku dhisaya inuu waqti qadada ka hor u tagi doono Taariifa, waa magaalada uu hadda ku socdee. wuxuuna awoodi doonaa inuu buugiisa buug kale ku beddesho, garhkana iska xiiri doono, timahana jaran doono, uuna diyaar u noqon doono inuu isagoo dhammaystiran la kulmo gabadhii uu ganacsaduhu dhalay. maruu doonin inuu sawirto suurtagalnimada in adhi jira isaga ka maal badani uu ka soo horreeyo isagoo damacsan inuu iyada weydiisto ganacsadaha. wuxuuna isagoo fekeraya mar kalena samada eegaya tallaabadana guraya uu naftiisa ku yidhi, ma jirto shay ka farxad badan nolosha in ay riyadaadu rumowdo mooye. wuxuuna xasuusay in Taariifa ay joogtay islaan waayeela oo taqaan fasiraadda riyooyinka. habeenkaasna wuxuu ku riyooday riyadii uu hore ugu riyooday doorkii hore. markii uu ninkii dhalinyarada ahaa soo gaadhay magaaladii ayuu u tegay islaantii waayeelka ahayd, waxayna la aaday qolka gooniya gurigeeda oo ay miis iyo 2 kursi yaaleen.
islaantii way fadhiisatay waxayna ka codsatay inuu kasoo horjeedkeeda soo fadhiisto. waxayna qabatay labadiisii gacmood waxayna ku akhriday wax duco u eg. waxayna u ekayd wax u eg qaabka ay u cibaadaystaan dadka qajariyiinta loo yaqaan. dadkaas oo ah dad asalkoodu Hindi yahay balse iyagu socod badan oo hadba meel dega, iyagoon lahayn wadan cayiman oo ay degan yihiin. wuuna la kulmay intuu safaradiisa ku jiray dadkan iyagoo safara, manayna ahayn dad adhi dhaqato ah, balse waxaa dadka dhexdooda ku faafay inay yihiin dad waqtigooda ku lumiya khiyaanada dadka, iyo in xidhiidh ka dhexeeyo iyaga iyo shaydaanka, iyo inay xadaan carruurta si ay uga dhigtaan addoomaha dhow u shaqeeya. waxaana ninkan adhi jiraha ahi markii uu yaraa uu ka biqi jiray inay xadaan dadka qajarka ahi, iyadoo markuu soo xasuustayna ay baqdintaasi ku soo noqotay kadib markii haweeneyda waayeelka ahi ay gacmihiisa haysay. wuxuuna ku fikiray iskuna dayay inuu naftiisa dejiyo, manuuna doonayn in gacmihiisu gariiraan. isagoo aamusan ayuu duco hoos u akhriyay. waa arrin cajiiba ayay tidhi islaantii waayeelka ahayd iyadoo aan indhaha ka jeedin gacanta ninkii dhallinyarada ahaa. mar kale ayayna dhool la caddaysay, laakiin isagii marba marka ka dambaysa baqdintii ayaa kusii xoogaysanaysay. waxayna bilaabeen inay gacmihiisu gariiraan. wayna aragtay islaantii waayeelka ahayd, wuxuuna damcay inuu si degdeg ah ugala baxo gacmihiisa. kadibna wuxuu ku yidhi, uma iman halkan inaad akhrido laymanka iyo calaamadaha gacmahayga. wuxuuna ka qoomameeyey soo gelitaankiisa gurigan. wuxuuna ku fikiray inuu siiyo lacagteeda uuna iska baxo isagoon waxba ogaan, balse wuxuu rabay inuu wax ka ogaado riyadan ku soo noqnoqotay. islaantii waayeelka ahayd ayaana ku tidhi, waxaad u timid inaad i weydiiso riyo. riyooyinkuna waa fariin dhanka Rabbi ka timi. marka Ilaahay ku hadlo aadanaha afka ay fahmayaan waan fasiri karaa, laakiin markuu kugula hadlo qaab ruuxdaadu fahmayso keliga ayuunbaa fahmi karaa. si kastaba xaalku ha ahaadee waa inaad aniga i siisaa oo aad iska bixisaa lacagtayda. waa khiyaano kale ayuu isugu jawaabay ninkii dhallinyarada ahaa isagoo fikiraya. balse wuxuu ninkii adhi jiraha dhallinyarada ahaa go'aansaday inuu isbiimeeyo uuna wax walba u sheego islaantii waayeelka ahayd. sababtoo ah wuxuu la kulmayaa mar walba khatartayda iyo dhibka abaaraha. tanina waa ta isaga uga dhigaysa xirfadiisa mid xiiso leh. wuxuuna ninkii dhallinyarada ahaa yidhi, waxaan ku riyooday isla riyadan 2 jeer oo isku xigta. waxaan la jooga adhigayga dhul daaqsin ah. kadib waxaa soo muuqday oo aan arkay ilmo yar. wuxuuna bilaabay inuu la ciyaaro adhigaygii. anna ma jecla in cid la ciyaarto adhigayga sababtoo ah way ka baqaan qofka aanay garanayn. balse carruurtu mar walba waa ay u yimaadaan wayna la ciyaaraan iyadoon wax baqdin ah ka muujin, mana garanaya sababta. sida ugu suura gashay inay xooluhu kala gartaan cimriga ama da'da aadanaha.